bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fiirsadayaal meel kastoo isin roogtan waxaa ka dhowaada barnaamij gaar ee uuna ka fiiriyaan isboortiska degmada baydhabo iyo weliba tababarka ciyaartoyda xulka koonfur galbeed aan ka bilaabaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. garoonka baloonug lugta ee degmada baydhabo waliba tababarshu caadiga ee ka qaadadahaya ciyaartoyda xulka baloonug lugta koonfur galbeed oo bilaaway diyaargarow shok eedan ku qaybgalowka ciyaaro maamul goboleedyada ee sanadkan dhammaadiyay gobsamo doona ciyaartoy deeraasa 40 ciyaaryahan oo inaska jiraan ciyaartoy cusub oo laha xuli iyo haani hore inka diiwaan galanayo xulka koonfur galbeed iyo inaska jiraan ciyaartoyda magaalada baydhabo tababarka ka sameeya hayaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo yoroogen ciyaartoyda badansho iyo waliba magaalada baydhabo ha ka dhawaayana ciyaartoy ku dareertay gobolka shabeellaha hoose oo sanadkan nasiiban waaladay intii gobolkaas matalan nasiibnan waaladan intii qeyb ku nagadan tababarka diyaargarowga ciyaartoyda xulka koonfur galbeed waxaana ku mid ah ciyaartoydii sanadkii hore matalaasi xulka koonfur galbeed waana ku dareeray gobolka baay iyo magaalada baydhabo waliba galnyo furunha kaga dhawaayana ciyaartoyda ku dareerta gobolka shabeellaha hoose walibana yoon rajeeyana intii tababar fayl isla qaadadaan saasaatoona wada jarsho guulka deeraan. bismillaahi raxmaani raxiim anoo magacayleero cali cabdi aadan oo linka soo daali ali may ka mid ahaa ciyaartoyda gobolka baay oo matalahayta xulka koonfur galbeed shalay ma dhawaynay ciyaartoyda oo jir oo bugshaani magaalada shabeellada hoose haddana may sugahayna ciyaartoyda kale oo koonfur oo xudur insha Allah haddana sanadka hore may ku mid ahaa ciyaartoyda oo matalay xulka koonfur galbeed sanadkuna caalmadada ka jarna insha Allah may rajayna intuuna guulo badan hooyna insha Allah sanadkii hore si ku duub inta la qoyna rajayahay insha Allah tababarka sanadkii hore kaamay ka shaldooyin wallahi tababarka sanadkii hore eedan shaldooyin tababarka sanadkun eedan adagya kii hore camal ma baroonun sisba eedan dib badanya dulqaad badan la baahanyahay adkaysi badan insha Allah unin ma diyaaran ana inta tababar walba macalinka u saneeyana inta uu safayl an qaadan waajibaadkuna la saaran iyo waajibaadka xulka uu la saaran intuna si oo nadiif ah oo gudun may sanadkii hore tababarkii sanadku meeg shal duwanya macalin gadaamo oo sanadkii hore noo jaray xamar sanadkuna may mili rooge magaalada baydhabo may fadahan inta eed ku faa'iideysana tababarku u nimbiyahay insha Allah fursado badan iyo khibrad badan tun ka faa'iideysana fadahan macalinkan insha Allah bismillah anoo leeyahay aadan maalin ahmed lanka soo siidkay oo ku mid ah ciyaartoyda gobolka baay shalay ma dhawaynay ciyaartoydii oo ku soo tii shabeellaha hoose oo ninka soo trading baydhabo oo inay iska diyaariyaan maamul goboleedka insha Allah mayna ku mid tahay ciyaartoydii sanadkii hore matalaasi walaal bandhiguna sameeyay iimaylun hadeerni
haddana tradingkii horkii ku dulunga ka jaran rajadaan intii hor ku faylata mar walba ma rajayna insha Allah intii mar gobolkan guuleyshan koobna insha Allah haddii oo fiirar yani rajadii hor uun lahayn intaan mayba eedan shal duwin diyaariskuuna diyaariyay waqtigeena galiyahay mayba tii hor haddii fiirar intaan mayba difference gan lahay tii hor wal yara aalmin deeni laakiin muddo trading nin soo haddana ciyaartooyda oo meeloon iska shani meeloos ka hareysana rajadaan tii hor ku faylata insha Allah ma rajayna intuu koobshan ciyaartooyda cusub oo nasiiban waaldatay sanadkun laan xula tababarka waana nasiiban waaladan intii matalan gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba ku waramana dareen shooka eedan sida ciyaartooyda gobolka Bay iyo aan ka dhawaayeen magaalada Baydhabo iyo waliba daadadowka tababarsho diyaar garow oo ka dareera garoonka Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo. Bismillahir Rahmanir Rahim magacaygu waa Cabdixamiid Cabdiraxmaan Cismaan oo ka socda gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Awdheegle waxaan magaalada Baydhabo ugu imaanay ciyaartooy naga soo horeeyay matalayo iyagana xulka maamulka koonfur galbeed ku sugan magaalada Baydhabo iyagana waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan si fiican training iyo tababarka isku barano insha Allah sanadka waxaa ka mid noqday ciyaaryahanada cusub ee nasiib ku yeeshay inay ka qayb galaan insha Allah waxaan rajaynaa insha Allah inaan ka qayb galo waxaan rajaynaa insha Allah inaan guuleysano insha Allah ciyaartooyda kale naga soo horeyseen waxaan rajaynaa inaan si fiican isu fahmi doono insha Allah insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan macna season ka aan noqono champion insha Allah dadaal badan aan bixino insha Allah ciyaartooyda dadaal ay bixiyaan si aan macna anaga aan waxaan macna darajada sare u gaarno insha Allah magaalada Baydhabo isagoo macallimiinta tababarka deegaanka iyo ciyaartooyda tababarka aan ka lahaayeen waliba iraab kasta iyo salamada garoonka ka kala lahaayeen aan ku mid ah shacabka magaalada Baydhabo gaar ahaan bahda sportska oo Yunasiyada aan garab suran dhiirigelin iyo waliba habshan loo garab suran ciyaartooyda koonfur galbeed Ibrahim Usman Abdi ifo waliba usmidaya bahda sportska deegaanada koonfur galbeed soo ka hadalo afka shacabka magaalada Baydhabo iyo waliba iraab kasta aka kala hay garoonkan soo dhiirigelin ciyaartooyda diyaar garoow hayta anti kulka koonfur galbeed matalan ciyaaro maamul goboleedyada oo doona sanadka dhamaadii waliba sheegay anti war kala tarawaayo iyo dhiirigelin iyo waliba habshan loo garab suran ciyaartooyda maamulka koonfur galbeed. Bismillahir Rahmanir Rahim anoo magacay Ibrahim Usman Abdi oo ku tirsan macnaha taageerayaasha shacabka magaalada Baydhabo koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo hadda meerona garoonka Dr. Ayub Stadium meel roogna ciyaartooyda oo mana is diyaar gareeyaan oo mana caalamiin dahaan oo nin raab kasta mana meel roogna oo diyaar garow fayli wadaan marka onina ma anfiicayaan may boo garab mana una wala saasan ka hayn may baa haynaha taageero iyo marka niyadis iyo manaha iyo marka safayla dadaal badan soo beensaday sanadkii safayla ku fayla iyo kooyan ya maana ka dhiirigeliyaan raab kasta bartimada suruna ciyaartooyda juhdi badan biyaha hadaba sidii hore ma waa caalamiinta badan soo biyaha marka xaaladii xafradii hadda sidaan ku ogaynay maanaha hadda isbedel badan ku muuqda marka insha Allah ma rajaynaa in ciyaartooyda maana dadaal fayliyo muujiyaan rajaynaa dadka kale koonfur galbeed maanaha ma sheeganay in maanaha hadda meel dhisan suruna araga haytan oo maanaha garoonka tababarka ka biyahay oo waxyaabo badan maala ku dhimanta ilaa hadda maana dad oo maanaha ma araga hayn oo garoonkii kooy oo ciyaartooyda dhiirigeliyay la ku reeb dadka dhalinyarada oo la saatay magaalada Roogan ma taageerayaasha kumida ma ciyaartooyda hore kumida oo isbartiimada maanaha Roogan maanaha walan hayna kala oo hadda meelunka kooyna ma araga hayna heraab la geli marka inta sugna ciyaartooyda maanta iska diyaar gareeyaan caalamiinta badan biyahayaan waa may baadin ciyaartooyda naftirsha hadii maanaha moraalka la dhiso oo is diyaar gareeyaan lan sheega maanaha in idin dhiso maanaha ciyaartooyda naftirsha maanaha bedel badan maanaha yasoo biyayaan marka hadii ciyaartooyda maanaha lan garab istaagnayn oo meel bulan roogna waliyo marka may boo niyadis bulan ka sameeyna may baaragaas in marka may ba meeliyada la ku liido oo maanaha la ku jeefa markuu may lan baahanyaa dadka maanaha koonfur galbeed ku tirsan qaasada wali magaalada Hadrooga dadka madaxda iyo dadka mas'uuliyiinta iyo dadka marka ganacsatada iyo kulli marka may lan ku baahanyaa in marka ciyaartooyda maanaha iyo dadaal badan muujiyaan oo isbartimidi maanaha kooyan aragan ciyaartooyda toliyo soo bihayaan dadaalkii fi soo bihayaan juhdiga maanaha iyo fiiriyaan marka ma er lahaayay marka insha Allah dadaalka maanaha in dadaal la ka dara hortub dadaal jirtan dadka koonfur galbeed
marka ma in sheegaan insha Allah iyo intii diyaar garoon ciyaartoyda xulka balooniga lugta maamulka koonfur galbeed ee sanadkii la dhaafi bandhig fayle ka sameeyay ciyaaroogi maamul goboleedyada magaalada muqdisho ka qobsamay walibana xilligaas hogaamiyay macalin Axmed Cabdiraxmaan Gidaamow oo hata rooga magaalada Baydhabo saasaatoonu soo hogaamiyay tababarka ciyaartoyda macalin Gidaamow oo hata muddo bilooyin ee ka guda jira tababarka ciyaartoyda anka dareera magaalada Baydhabo ya waliba sheegay in isbedel weyn jira sanadkan hataba sadaaw dareenka iyo rajada tababara Gidaamow ee sanadkan bismillaahir rahmaanir rahiim markuu wareyso waxaan salaamaha TV-ga iyo saaxiibkay Musharraf marka runtii waa sida u jeedin macnaha waxaan bilaabay tartankii oo maamul goboleedyada waxa laga yaabaa bisha adiga 12aad marka diyaar garowgii ahayna koonfur galbeed ciyaartoyda matalaadka xulka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo ka qaadayaan tababarsho ya waliba in iska jarana ciyaartoy sanadoogii la dhaafi ku muuqday shaxda xulka iyo haano sanadkan la ka xuli xirfadiyo oo rajadiyo ee tantiyo ku muuqdaan tababarka iyo shaxda sports ee koonfur galbeed gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolka Baaya hata ciyaartoyda waliba roogana magaalada Baydhabo walibana la filahayaa intii Baydhabo dhawaan hadeeran ciyaartoy matalaasa gobolka Bakool kureedna tiro badan oo ciyaartoy iyo tababarka ka shal hira doonaan muddo 4 bilood walibana ka dambeyntii tababaraga xulka koonfur galbeed saaro doona shax ciyaartoy oo ka kooban 20 ilaa ma ciyaaryahan oo la ka xulo doona xirfadiyo iyo bandhijo si markaas lan hela ciyaartoy xirfadaysan oo adag waana guul in maga ku sheena koran ciyaaro maamul goboleedyada dhamaadka sanadkan qobsamo doonaan firsadayaal barnaamijkii sportiska oo nasagaaran ka fiiriyaan diyaar garowga iyo tababarka ciyaartoyda xulka koonfur firsadayaal meel kasto isin rogtaan waliba firsadayaal barnaamijkii gaarka hay ee sportiska oo ka fiiriyaan diyaar garowga iyo waliba tababarka xulka ciyaartoyda koonfur galbeed yaanta ka gabagabeeyana barnaamijkan oo Cabdinaasir Musharraf iyo Xasan Diyaari waana tasin kula dareersiyay waliba dhinaga farsamada kaamirada baan kuma hadnagay saaxiibada Sidaali Muuse Maxamed Atara iyo waliba injineer Axmed Buule tan iyo kulanto damba nabadgelyo